السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان انت channel يوتيوب كحيران رمضان أكاديمي أونلاين سو دوادا مركلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة حسابين وحي كساب سنتهاي مادة حسابتا دوسيك سرع فصل كفون فور منهج كعصب tusaalaha labaad haddaba la soo bax buugaaga xisaabta santifigaagana soo diyaarso beejkuna waa beejka saddexaad cashirkuna waa cashirka labaad haddaba aan isla soconno notekan waa muhiim note ogow ama ogeysiis the following identities hold for any angle theta for which the function are defined. waxaa lagu leeyahay halkan the following identities midaalooyinkan soo socda hold for any angle theta for which the function are defined. angalkaad rabto ayaad iska qabsanaysaa waxayna qeexaysaa in labadan dhinacan leftiga iyo dhinacan right-ka inay isku mid yihiin. aan ku celisho halkaas the following identities midaalooyinkan soo socda hold for any angle theta for which the function are defined. angalkaad rabto ayaad iska qabsanaysaa waxayna qeexaysaa in labadan angal ee halkan kugu qoran ay yihiin isku mid. labadan angal inay yihiin isku mid ayay ku qeexaysaa. angalkaad rabtaa halkan qabsane labadan angalna waa inay noqdaan isku mid. haddaba halkan waxaa inoogu qoran cos bracket 90 degree 90 degree minus theta waxay la mid tahay sin theta. haddaba sinka markaa ka bilaabno aan dhahno 90 round bracket 90 minus theta iyaduna waxay u dhigantaa coskii halkan soo marayo cofunction waaye cofunction ay isku yihiin halana cofunction waaye labadan xagal waxay isku yihiin cofunction halka dhinacan leftiga iyo dhinacan right-ka waa isku mid. sidoo kale sinka markaa qaadato sin 90 minus theta waxay la mid tahay iyaduna cos theta ay la mid tahay tan 90 minus theta waxay la mid tahay cot theta. sidoo kale cot 90 degree minus theta waxay kula mid tahay tan theta. sec markaa soo qaata 90 degree minus theta iyana waxay kula mid tahay cosec theta. sidoo kale cosec 90 degree minus theta waxay kula mid tahay sec theta. haddaba cos coefficientkeeda waa sin theta, sin coefficientkeedana waa cos theta, tan coefficientkeedana waa cot theta, cotna coefficientkeeda waa tan theta, sec coefficientkeeda waa cosec theta, cosec coefficientkeedana waa sec theta. waxaa muhiim ah marka lixdaa qaacido inaad kor ka qabato. haddaba aan gudagalno tusaalaha labaad ee cashirkeena. tusaalaha labaad wuxuu ku saabsan yahay wuxuu dhacayaa sidan find raadi. waa tusaalaha labaad cashirkeena caawa. lixdaa qaacido waa cofunction mar walba waa muhiim. find raadi one value hal qiimo of theta meesha thetada ay ku jirto halkan theta ku jirto qiimaha theta raadi or x ama x. halkan a b c example-ka labaad wuxuu ka kooban yahay a b c ayuu ka kooban yahay. mar theta raadinaynaa marna x raadinaa. goorma theta raadinaa su-aasha a iyo su-aasha b thetadaas soo helaynaa. qaybta cna x raadin doonaa. haddaba sabuurada aan wada tagno ila socda aan isla soconno. waxaa inoo qoran tusaalaha labaad qaybtiisa waxaa inoo qoran cot theta
cot theta equal tan 25 degree 25 degree haddaba cot theta waxay la mid tahay tan 25 degree waxaan rabaa inaan raadsho theta qiimaheeda angle galicia soo qaadana kana soo hormarinay oo waxaan leedahay tan 25 degree tan 25 degree equal cot theta waxaa raadinaysidna waxaa marine gadaal marine oo ko yani waxaa ka bilaabay angalka lagu siiyaa ka bilaabay tan 25 degree equal cot theta waxaa raadinayna waa theta cot theta waxaa dhahaynaa tan 25 sideed usoo qaado tan 25 degree waxay la mid tahay cot theta coefficientkeeda muxuu noqonayaa cot theta coefficientkeeda wuxuu noqonayaa tan 90 degree minus theta cot theta coefficientkeeda waa qaacidooyinkii hadda aan soo sharaxay waxaan leenahay cot theta cagsigeeda coefficientkeeda waa tan bracket 90 degree minus theta tankan iyo tankan isla tuur oo halkan waxaa inooga harayo 25 degree 25 degree equal halkaanna waxaa inooga harayo 90 degree minus theta 90 degree minus theta waxaan raadinayna waa theta halkan wixii ku joogta hadda waa negative soo wareeji halkan keen xarfuhu waxay leeyihiin left hand side ay leeyihiin halkan theta marka usoo wareejo thetada waxay qaadanay positive oo halkan waxay ku joogtaa negative marka wareejisid calaamadu way bedelanay halkan waxa ku yaal 90 degree 25 tan hadda waa positive wareeji halkaa gee oo waxay qaadanay negative wixii number ana waxay leeyihiin right hand side saa darteed theta waxay kula mid tahay scientific-ga la soo bixi markaan xadhay 90 degree laga jaray 25 degree waxaa theta ku soo baxday 65 degree thetada soo helnay waa 65 degree haddaba macalin ma jirtaa hab kale ee looga shaqayn karo hab fudud ma jirtaa habkan ka fudud ha yes waaye ada way hab kale jiro kan ka fudud ada wayska habkan kale ka fudud waxa waa markaste soo qaadanay 90 degree minus theta qaacidana ku shaqaynay waygan qaacidana ku shaqaynay 90 degree minus theta ku shaqaynay theta xaalisa thetada lagu siiyay waatan theta xal lagu siiyay 25 theta xal lagu siiyay 25 degree lagu siiyay haddaba waxaa soo qaadataa oo waxaa dhahdaa 90 degree minus theta waxaa lagu siiyay 25 halkan ku bedelo oo haddaba waxaa kuu soo baxaya waxaa helaysaa 90 minus 25 waa 65 waa 65 haddaba jawaabteena waa halkaas sidaa darteed theta waa soo helnay cot
lixdan iyo shan degree sidaa darteed kod lixdan iyo shan degree waxay u dhigantaa waxay la eg tahay tan 25 degree oo labada angle waa kuwa isku mid ah. intaasi waxaa ku eg qaybta e oo tiitada waxaa soo helnay 65 degree aa soo helnay. saa darteed cot 65 degree waxay u dhigantaa tan 25. habkaasna waa habka ugu fudud aad ugu jawaabi kartid su'aalaha noocaas oo kale ah ee cofunctionka. su-aasha labaad example kood qaybtiisa b waxay u dhacay sidan sin theta waxay la mid tahay cos minus 30 degree waa cofunction. example labaad qaybtiisa b waayo cofunction. qaabka haddoo kale ku sameynaynaa angalkana la siiyey kan ka bilow soo qaado hadhaadaa cos minus 30 degree equal sin theta-dana waxaa maraysaa leftiga sin theta waxaan leenahay cos minus 30 degree sideeda usoo qaado equal sin theta cofunctionkeedu waa cos markasta qaacidooyinkaas inaad taqaanid waaye cos 90 degree minus theta coskan iyo coskan isla tuur marka waxaa inooga haraayo minus 30 equal halkaana waxaa ku haraayo 90 degree minus theta waxaan raadinayna waa qiimaha thetadan hadeer waxay wadataa negative markay wareegato waxay qaadanaya positive oo waxaa leenahay theta equal 90 booskiisu jooga sidiis usoo qaaday reedkiisu joogaa 90 degree minus 30 waaye laftigu jooga markuu wareegto wuxuu qaadanayaa positive 30 degree ayaynu leenahay theta equal labadan way isku darsamayaan like sign waaye wixii like sign-na waa la isku daraa wixii isku calaamada waa la isku daraa oo theta-dan waxay la mid tahay 120 sin 120 equal waxay u dhigantaa cos minus 30 ayay u dhigantaa. buuggan su-aashaas wuxuu jawaabayaa sidan iyaduna waa sax waa soo qaadan kartaa jawaabta soo kale waad qoran kartaa cos haddii aan xalino wadada uu buugga u maraayo taa hadda u shaqeynaynaa ugu fudud. sin theta cagsigeeda waa cos waa another way waa hab kale cos 90 degree minus theta equal cos minus 30 waxaa leenahay coskan iyo coskan isla tuur oo halkan waxaa ku haraayo 90 degree minus theta equal minus 30
waxaynu leenahay 90 aan wareeji xagga gee minus theta equal minus theta soo qaada booskiisu joogaa waxba calaamadaha ka bedelin kan hadda wuxuu wataa positive oo every number tiro walba aan calaamad wadanin assume waxa loo qaataa positive sign inay ka horeyso wareeji xagga gee waxay qaadanayaan -90 degree in ay noqonayaan hore u soco waxa dhahdaa minus theta equal labadan negative halka qaado like sign waaye calaamadaha isku midkaana waa isku daraa 30 degree plus 90 degree na waa 120 halkan waxa u qaybisaa minus halkan minus oo halkan waxa ka soo baxayo theta equal 120 degree wadadaasna waad qaadan kartaa wadadan wada ka fududna wejida iyaduna waa tii qaybta ay u qaadanayna oo waxa dhahe 90 minus theta 90 soo qaado 90 soo qaado minus 9 degree soo qaado minus theta xalida theta waxa lagu siiyay minus 30 minus ay wadataa dam ay minus wadatan bracket ay gelinaysaa oo waxa dhahe minus 30 degree qoys ku xir 9 degree minus times minus waxa ka soo baxaya positive way isu darsamayaan labada negative markaas ku dhufatid halkaas ay noqonaa positive 90 iyo 30 way isu darsamayaan theta waxay la mid tahay 120 degree saddexda hab waad ugu shaqeyn kartaa qaybta B halkaas ay nooga siman tahay example labaad qaybtiisa C hadii aynu u gudubno qaybtiisa C waxa inoo qoran cosecant cosec 3 by over 4 equal sec x equal sec x waxaanu leenahay hadeer wax la soo wareejinaa miyaa jira may waayo angalka halkaan ku qoran yahay angalka lagu siiyay wuxuu jiraa left kan kalena wuxuu jiraa right sidiisa soo qaadanaya cosecant waxay la mid tahay 3 by sideed u soo qaado over 4 equal sec coefficient-keeda waa cosecant ama cosec 90 degree minus theta cosectan iyo cosectan isla tuur halkan waxa ku harayo halkan waxa inooga harayo 3 by over 4 xisaabtu maaha mid adag laakiin ardaydu waxay ka dhigayaan wax adag ma aha diyaarinta kugu yar samaysaa juhdi bixi dadaalka bixiso marna eber kuma dhamaanayo hadeer 90gan waa degree halkaan waxa noo qor radian 90gan degree oo qorayna oo waxa leenahay by over 2 aynu qoraynaa by over 2 minus 90 minus theta radian oo loo bedelayo degree oo loo bedelayo radianna formula lagu qaataa saa darteed minus theta wareeji xagga geey minus theta hadda minus ay wadataa markay wareegato yani waxay noqonaysaa positive equal by over 2 the booskeeda joogtaa sideed u soo qaado by over 2 the booskeeda joogtaa kan hadeer waxay wadataa plus markay wareegatana calaamad way bedelanay oo waxay noqonaysaa 3 by over 4
waxaynu leenahay labadan LCM aan ku qaadanaynaa 2 iyo 4 LCM kooda waa 4 tirada weyn tan yar haddii u qaybsan tan weyna waxaa loo qaataa LCM ama furfuro LCM ka qaabka loo raadiyo you know very well arday form 4 aad tahay waxaan filayaa inaad fahmaysid 2 qayb 1 kana 1 kama 2 times 2 LCM ka qaabkaas loo raadiyaa 4 haddaba LCM waxaa u qaadanay 4 2 qaybi waa 2 times by waa 2 by minus 4 qaybi waa 1 times 3 by waxay noo noqonaysaa 3 by equal leenahay theta soo qaada theta equal 2 by iyo 3 by hadday kala jarmaan waa minus by minus intuu ka yimid 2gan iyo 3gana kala jarmaayo waa 1 oo minus wato by iyo byna halaa ka soo qaadanaynaa 1 horgalaa lama qoro saa darteed waxaa dhahayna minus by over 4 thetadeena waxay la mid tahay minus by over 4 ayay kula mid tahay halkan cosec 3 by over 4 equal sec x halkaas cafwan halkan sec x waaye qiimaha raadinayna waa x saa darteed halkan waxaynu ku bedelanaynaa x halkan waxaa ku bedelanaynaa x halkan waxay noo noqonaysaa x halkan waxay noo noqonay x halkan waxay noo noqonay x qiimaha x waa soo helnay haddaba theta x waa same waa variable marka x-ka waxaa soo helnay minus by over 4 sidaa darteed therefore sidaa darteed cosec 3 by over 4 waxay u dhigantaa sec minus by over 4 ayay u dhigantaa habkaas waa habka uu buugan inoo qoray habkan habka fududaa jira marka oo waxaa dhihi kartaa 90 degree another way 90 degree minus theta maanta maadaama thetada aad haysato radian 90gana radian u qoraynaa hadhaane 9 radian markaa u qorno waxay noo noqonaya by over 2 minus thetadana waxaa ku bedelanayay 3 by over 4 3 by over 4 aad ku bedelan kartaa wadadan iyaduna waa mid aad ugu shaqeyn karto xisaabtan sidii hadda oo kala sameynaa labada LCM uraadina waa 4 iyo 2 isku qaybina waa 2 iyo by isku dhufanayna waa 2 by minus 4 iyo 4 isku qaybina waa 1 iyo 3 by isku dhufanayna waa 3 by labadan waxay sameynayaan labada sare waa kala calaamad way kala jarmayaan waa minus by hoosna 4 haddaba x-keena raadinayna waa x wuxuu la mid yahay minus by over 4 qaacidadaas you can do it waa samayn kartaa haddii aynu ku darno example-ka saddexaad iyana wuxuu dhacayaa sidan right cos 180 degree minus theta as trigonometric function u qoru leeyahay dab sabuurada aan wada tagno ardaydeeda ila socda leenahay example-ka saddexaad tusaalaha saddexaad ee buugga xisaabta
dugsiga sare ee manhajka cusub ku dhacaya sidan waa cos boqol iyo siddeetan degree minus theta maxaa lagu dhahay as trigonometric function of theta isticmaal trigonometric function soo qaadanay cos a waxaa lagu siiyey cos a minus b aa lagu siiyey haddaba booska boqol iyo siddeetan meesha ay ku jirto waxaad u qaadanay a meesha theta ay ku jirtana waxaad u qaadanay b waxaa dheenaa cos a minus b waxaa lagu furfuraa qaacidada markasta inaad taqaanid waa qaacidooyinkii compound angle formula cos a minus b waxaa lagu furfuraa cos a cos b cos b halkan difference markay noqoto halkan waxay noqonaysaa plus sin a sin b meel kasta ee ku jirta a waxay ku bedeltaa boqol iyo siddeetan halkan waxaa ku bedelanaya boqol iyo siddeetan meel kasta b ee ku jirtana waxaa ku bedeltaa theta kan sidoo kale iyana waxaa ku bedeltaa boqol iyo siddeetan meesha b ee ku jirtana theta sideeda ayay usoo noqon doontaa isma bedelaysa iyada meel kasta a ee ku jirta waxaa leenahay coska sidiis usoo qaada cos booska a waxaa ku bedeltaa boqol iyo siddeetan degree cos meesha bina waxaa ku bedeltaa theta plus sin booska a waxaa ku bedeltaa boqol iyo siddeetan degree sin booska bina waxaa ku bedelataa theta sidaa darteed waxaynu leenahay cos boqol iyo siddeetan centifigaga la soo baxay cos boqol iyo siddeetan maxay u dhigantaa waa minus one minus intuu ka yimid cosku waa waaxda labaad cosku waa minus cos thetadan sideeda usoo qaado cos theta plus sin boqol iyo siddeetan equal to centifigaga geli sin boqol iyo siddeetan waxay kula mid tahay zero sin thetadan sideeda usoo qaado halkan qoys geli maadaama ay tahay sababta isku dhufasho labadan sin a iyo sin b way isku dhufsan yihiin waa micnaheeda sin theta minus one iyo cos theta markaa isku dhufato waa cos theta waayo one horgala lama qoro cos theta plus zero times thetana waa zero sidaa darteed waxaynu leenahay minus theta minus cos theta plus zero waxay kula mid tahay minus cos theta ansarkan halkaas yuu ku siman yahay example saddexaad la soco examplada kale aan soo gelin doono channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar like share comment ardayda Soomaaliyeed geersii